waxaan maanta halkan ku wareejinaynaa 2 gaari wax weyn ma aha laakiin muhiimadayadu waxaan dareensiinaynaa madaxda dawladda oo ay ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka taliyaha booliska Muumin Cabdishire in badan juhdi geliyay amniga Puntland keenana ciidan kan dhalinyarada hadda oo mutacalimiinta ah baan dareensiinaynaa in dadkoodii iyo shacabkii Puntland ba ay raalina ka yihiin garabna taagan yihiin dawladda iyo ciidankooda diyaarna u yihiin inay la shaqeeyaan af iyo adin iyo dhaqaale intaba kula shaqeeyaan waxaan kaloo dhiirigelinaynaa ciidanka aqoon-yahaniinta ah oo aqoontoodii u doortay inay ugu shaqeeyaan bulshadooda ee aysan iyagu gaar ugu shaqaysan mid cilmi iyo mid ciidan labadaba iyagana waa ku dhiirigelinaynaa waana uga mahadnaqaynaa oo waa aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan dhammaan shacabka Puntland leenahay ama faraynaa inay amniga in laga shaqeeyo shacabku dadku amniga inaga ku nool ma aha in dawladda kaliya looga jeedo amni haddaynan amniga inoo ka shaqeyn oo si wada jir uga shaqeyn de wax suurtagelaya ma jiraan gaar ahaan magaalada madaxda Garowe barwaaqadan iyo horumarkan iyo quruxdan waxa keenay ama ay ku shaqeey waa amniga haddaan amni la helin qurux ma jirayso oo laamiye qurux badan ma jirayaan oo dabaqyo ma jirayaan oo shirkado ma jirayaan oo hoteelo qurux badan ma jirayaan haddaan amniga laga wada shaqeyn waxaan leenahay amniga hal laga shaqeeyo oo aynu la shaqeyno ciidanka waxaan leeyahay ganacsatada dadka ilaahay wax siiyay sida shirkadaha kale hadii bay qadarkeeda leeyahay dadka dhaqaalaha haysta dhammaan in laga qayb qaato waxtarka booliska kii aan dhaqaalaha haysan uu kala shaqeeyo xogtu iyadu waa shaqo wixii dhibku ah dhammaan amniga xumaynaya isku meel looga soo wada jeesan intaa kadib waad ogtihiin maanta dawladda waxay ku jirtaa dagaal 2 sano waliba ah sanad xabada iyo sanad diyaar garowga loo diyaar garoway xabada sanadka diyaar garowga ay kama kharash yara kama hawl yara sanadka xabada waa ay dhiig baxday maanta dadkeena shacabka waxa la rabaa inaynu shaqeyno oo amnigii ka wada shaqeyno wiil xun oo duurka jooga ama qararka baa idin gureenayo idin oranaya soo shuba afilayaan la kala ordi lahayd intii marka wiil xun qarar ka duurdi ka soo wicilaa ciidanka la garab istaago la shaqeey ninka la yiraahdo ganacsade Caynaanshe Cabdullaahi Jaamac waxaan leeyahay aad iyo aad baan maasan tahay saaka waxa uu lagu soo wareejiyay 2 gaari oo barbakosyo ah oo la soo buufiyay oo calaamadii booliska ka muuqato oo nidaamsan wuxuu kaloo keenay katiinadihii ciidanka booliska oo shaqadu ay ku soconaysay iyadoo wuxuu noo sheegay in horaankii tahay wuxuu noo keenay qalabkii sida checkpointiyada trafficada ushii iyo meelihii goobaha loo istaagi lahaa calaamadii ay qabsanaysay leerka baabuurta ayagoo arintaas wana aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba caynaanshaha shakhsiga ah ee ka shaqeynaya danta guud dan gaar ah ma aha saldhigyada iyo shaqada bulshada loo hayo waa dan guud waxaana wada leh ummadda oo dhan baa wada leh waxaa la rabaa sida masaajidda oo kale iyo saldhigyada booliiska iyo isbitaalka iyo dan guud baa la yiraahdaa waxay u shaqeeyaan dan guud dan gaar ah danta guud shaqada waxa waa lagu disadaa shilinka waa lagu bixiyaa adduun iyo aakhirna liibaan baa kugu sugan marka waxaan leenahay Caynaanshe aad iyo aad buu maasan yahay 100%